ugu dambeyntii waa ka soo badbaadeen badda waxa timaadeen bariga marka haddana sida aad sheegtay waxaad soo bilowdeen safar kale oo lugaysa idinkoo marka buuro dhaadheer soo mara marka sidee ayuu ahaa safarka marka ana ka xeebta ka baxna buuro dhaadheer aan soo marnay ana ko dhuumeyn oo isdhahayno faraha yaa leeday ka qaadeen buurba buurtay ka dheerta markaan soo marna aniga buurti ka dhaxay aniga iinin iraaqaha ka dhacnay aniga gacana iga jabta asna ninkina gacana ka jabta ana marka wiil Soomaaliyeed oo badan ay la socdeen wiilashii garabka iga qabteen buuraha ayaga iga saarayeen ayaga iga dajiyayeen buurba buurtay ka dheerta markaan ay ku soo aadaanba ayaga iga dajiyay meeqa ayaa lugeynaysan waxaan lugeeyna habeen irkiyo dhan muhurdin anaka mana jiifan waa lugeeyna maalinkii duhurkii ana la qabtay 6 saac bar maalmeed marka ayaa idin qabtay baliiska gariiga okay kid baxgeedin geeyeen waana wadeen meel xero oo waxayna geeyeen oo askari oo waxayna geeyeen stationka magacyo naga qoriyay meterkii naga cabiriyay wuxuu noo gudbiyay kaamka markuu noo gudbiyay kaamka waxaan ku jirnay intaas bariye markaan bariye badan ku jirnay ay warqadana siiyeen ay markaa hadaba sida ay sheegtay hooyada Soomaaliyeed safarka tahriibka ayaa waxa la soo maraa xuduudda u dhaxaysa wadamada Suuriya iyo Turkiga buuro dhaadheer oo kamid ah buuraha caalamka ugu balaaran oo lagu magacaabo buuraha Antakya qaabka lagu soo maro buurahaas iyo dhibaatooyinka soo wajaha Soomaalida gaar ahaan haweenkii caruurta ayaa waxa ka waramaya Faarax Maxamed Nuur oo soo kamid ahaa qaxooti Soomaaliyeed oo soo maray buurahaas oo aan kula kulmay wadanka Greega Suuriya ayaan ka soo tahriibay anoo soo maray bariga waxaan soo lugeynay xuduudka u dhaxeeya Turkiga iyo Syria halkaas oo aad buuro dhaadheer ay ku yaaleen oo buurahaas yaani oo ku wadayo nin muharrib ah oo ka shaqeysta barnaamijkaas waxa iigu yaabnaa oo maarkaan arkana ay ahaayeen yaani dumarka Soomaaliyeed ka yimid wadamada khaliijka ama carabta inta ugu badan inay dadkaas u banaayeen oo aanan soco karin oo dhibkoodu maartay aad u fara badan yahay oo maartay naxaysid yaani dumarkii Soomaaliyeed ee sharafta lahaa yaani nin caraba ama uu haweysanayo lacagtii ka xoogayo kufsanayo marka meeshaas problem badan ayaa ka jiro waan ka soo gudubnay waxaan soo soconay taqriiban yaani 8 saacadood ayaan soo marinay hoodka u dhaxeeya Syria iyo Turkiga waxa ka dhacay halkaas mararka qaarkood in dadka Soomaalida lagu xiro qaarkood loo celiyo wadanka Suuriya qaarkoodna la xiro oo galaan xabsi ku yaalo magaalada Antakya ee ka tirsan wadanka Turkiga safarka shaaqa ee la soo marayo waxa dhacdo in yaani Soomaalidu inta badan ay ku guuleystaan inay u soo gudbaan dhanka Turkiga khaasatan magaalooyinka kala ah Ankara ama Istanbul halkaas ay u kala qaybsan laba qaybood qayb aada lugta oo dhinaca marto dhinaca xuduudka loo leeyahay Turkiga wadanka Greega oo dhinaca bariga ah ay marayaan dhulka oo ay soconayaan yaani taqriiban maalmo 2 maalmood 3 maalmood taas ay ka dhacdo maartay dhibaatooyin aad u fara badan taga qaarkood ay u dhintaan yaani qabow dadka qaarkood ay maartay webiga iyo markii dhibaatadaas ay dhacdo ay aad u dhibaatoodaan qaarkood ay maartay jirjir lagu sameeyo marka ay Soomaalidu soo galaan wadanka Turkiga ayaa waxa ay soo aadaan safar tahriib ah oo ay ugu soo gudbaan wadanka Greega iyaga oo soo mara badda lagu magacaabo Iija oo u dhaxaysa wadamada Turkiga iyo Greega iyaga oo ku soo tahriiba doonyaha yar yar hadaba qaabka safarka halka laga soo baxo iyo nooca doonta lagu soo tahriibo ayaa waxa ka sheekeynaya Ismaaciil Xayfow oo kamid ahaa dad ku soo galay wadanka Greega tahriib doon ah runtii hadii aan ka waramo safarka aan ku soo gaaray ilaa Greega hadii aan ka soo bilaabo waxaan ka soo baxay gobolka Izmir oo kamid ah gobolada dalka Turkiga waxa halkaas aan ka soo raacnay gaari kaasoo nuuciisa gaari gawaarida lagu qaado qudaarta ee daboolan waxaan soo saarnay muddo 5 saacadood ah markii runtii aan ka soo baxaynay gobolka Izmir waxaan ula sheekeyn jiray in aan raacayno dooman cusub oo Volvo inay wadiyaan dad Turkish ah
balse xaqiiqdu waxay ogaanaysaa markii aad timaadid halka doonta ka raacayso isla habeennimadii waxaan soo gaarnay meel xeeb agteeda ah oo aan deegaan u dhaweyn ilaa habeenkii afartii subaxnimo ayaan halkaas joognay kadib waxaan agteena lagu sameeyay doon boofis ah oo balam ah agteena ayaa lagu habeeyay kadib matoor baa meesha lagu saaray waxaana doonta halkaas ku soo waday mid ka mid ah dadka safarka ah iyadoo aan jirin nin naaqood ah waxaana ahayn dad gaaray 25 qofood runtii doonta markii loo fiiriyo waxaa loogu talagalay ugu badnaan 10 qof kadib markii aan marayno badweynta oo aan soo gaarin Greega kana soo gudubnay Turkiga doontii ayaa waxaa soo galay biyo kadib waxaan isku daynay biyihii inaan ka saarno dadkii ay qaarkood ayaa waxay isku qabsadeen qaar waxay dhaheen waxa weeye inaan marayniska Turkiga qaarna waxay dhaheen ma la wacayo doonta aan la degto intaan ku laabanay Turkiga iyaga oo raadinay kaliya Yurub kadib fillahi alxamdu waxaan soo gaarnay dalka Greega dadaal kadib waxaan badda ku soo jiray muddo 2 saacadood ah kadib subaxii waxaan soo gaarnay 5 barkii subaxnimo ilaa 12 subaxnimo waan lugeynay lug kadib waxaana qabtay askarta dalka Greega waxayna geeyeen kaam ku yaalo jasiirada La Mandile kaamkaas waxaan ku jirnay muddo adiga 7 maalmood ah runtii kaamkaas ma laha nolol wanaagsan nadaafad ahaan noloshiisa aad bay u liitaa kadib waan la soo daayay kadib waxaan la soo saaray markab ayaga ayaa na soo jirin tikidhada saas ayaan waxaan ku soo gaarnay magaalada Athena ee hadda aan ku suganahay Soomaalidu ku soo galaysa tahriibka doonyaha wadanka Greega ayaa mararka qaarkood waxaa dhacda in doontu ay la jabto iyaga oo aan soo gaarin wadanka Greega iyadoo ay soo badbaadiyaan askarta badaha ilaaliya ee wadanka Greega waxaana la sheegaa mararka qaarkood in askarta Greega ay ula dhaqmaan dadka tahriibka ku soo galay wadankooda qaab naxariis darro ah Saciid Axmed Daawud waxa uu kamid ahaa Soomaali dooniyar oo ay ku soo tahriibayeen ay kula jabtay badda u dhaxaysa wadamada Turkiga iyo Greega oo ay badda ka soo badbaadiyeen askarta badaha ilaaliya ee wadanka Greega waxa uu ka warami doonaa bal sida ay wax u dhaceen marka ay soo badbaadinayeen askarta badaha ilaaliya ee wadanka Greega dacdooyin badan baa naga soo gaadhay waxay naga soo saareen meel buur oo dhan dumar ah u badnayd rag waxa ay 6 qof rag inta kale dumar ah dumarka wallahi ilaahay mahad u leeyahay dumarka waxba way noqon anaga garabka soo qabanay kolka doonta soo kornay waxaan marka hore waxa ku soo baxnay mid Turkiga ni waday markii dambe waxa aragnay nin anaga nafteedaba anaga badbaadin karano ninkan waxba u garanay doonta wayna la soo socotay xeebta dhinacayga socotay xeebta kolka yar socoto dhagaxa jir dhagaxdii kadib doonta waxay noqotay inay doonta xumaato ay socon weydo in yar kolka muddo socono 20 minute doontii waxay qaadan weyday shidaalka wax loo yaqaano kolka waxay noqotay inaad dhinaca xeebta ka baxno oo badda weyn ku dhacno kolka baddi weyn ku dhacday wallahi maalinta badda deganayd ilaahay haw noo soo diray hawada ayaa badda weyn ugu soo riday waxaan sameynaa inaan isku badbaadino bahasha gacmaha lagu riixo inaan doonta ku riixno ay mootarkina waxba ay shaqeyn weyn anaka soo soconna oo yaaban waxaan aragnay iftiinkii Greega kolka aragnay waa faraxnay niyadeeda xoog boo faraxday waxa laba farxadna waxay nagu tahay iyuna jaandara ku qaban Greega farxadna waxay noo tahay inaan meesha ku halagno anaka sidii ilaahay u tuugsana oo baryana ilaahay waxana qabtay ciidamada Greega wallahi waxa ku haysan marka hore fikrada xun oo xoog xun ay dad hore Soomaaliya ay ku sameeyeen kolka marka aragnay mid walba wadnihiisa xoog u dhacay aanu taadaas ka hadlo tadeeda waxa sirmaad waa dhimanaysa waayo ciidamada Greega waxay sameeyaan kolkay ku qabtaan intay doonta riixaniya ka bujinayaan mootarkan way ka tuurayaan kolkan anaga saa u fikirano ilaahay wuxuu nagu badbaadiyay gabadh yar oo sanad jirta iyo hooyadeed yaa noo kacday oo qayliday oo xoog u qayliday oo tiri baby waxay tusisay inay ilmeerodo kolkay noo arkay in dumar badan aan la socono ee ragina ay aamusan yihiin rag way noo yar raxeen waxay rabeen inay najiidaan waxay isku dayeen inay qasab nagu jiidaan ay xadka naga saaraan waa ku qaylinay xoog u ooynay dib baa tusnay no back to Turkiya no back to Soomaaliya waa hadallo badan baa oranay markii noo naxariisteen ay doonta soo saareen wallahi alxamdulillah ilaahay baa mahad